Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyay in xal laga gaaro xiisadda Ukraine ay soo dhawaatay, isagoo ku macneeyay in madaxweynaha Ruushka Putin iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky ay si dhab ah u doonayaan inay gaaraan heshiis nabadeed si loo soo afjaro colaadda muddada dheer soo socotay. Trump ayaa intaa ku daray in faahfaahinta taariikhda iyo goobta uu dhowaan kula kulmi doono madaxdani waa Putin iyo Zelensky ay tahay maalmo gudahood, isagoo xusay in Zelensky uu raadinayo dhammaan damaanad qaadayaal iyo shuruudaha ka hor inta uusan saxiixin heshiiska. Warbaahinta Axios ayaa sheegtay in Britain ay martigelin doonto kulanka Yurub iyo Ukraine Sabtida si loo gaaro mowqif mid ah ka hor shir madaxeedka soo socda ee u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo dhigiisa Ruushka ee Putin. Warbaahinta ayaa ka soo xigatay saraakiil Ukraine ah iyo kuwa ka tirsan Yurub inay walaac ka muujiyaan suurtagalnimada in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku heshiiyo shuruudo nabadeed oo ay u arkaan inaan la aqbali karin, taasoo qayb ka ah dadaalada socda ee lagu soo afjarayo colaadda ka jirta Ukraine iyo Ruushka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa yiri waxaan la kulmi doonaa madaxweyne Putin, asiga oo ka jawaabayo su'aalo ay weydiiyeen saxafiyiin kuna weydiiyeen aqalka cad kadib kulan saddex geesood ah oo uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Armenia iyo sidoo kale madaxweynaha Azerbaijan. Trump ayaa yiri way dhici kartay inay dhaqso u dhacdo, laakiin ma laha sababtoo ah tallaabooyinka amni ee nasiib darro waa in la meel mariyaa. Trump ayaa intaa ku daray waxaan eegaynaa dhul ay colaadi ka jirtay 3 sano iyo bar, waxaan eegaynaa xoogaa isdhaafsi, waana arrin adag. Dhulka qaar ayaa soo laaban doona, dhulka qaar ayaa isbedeli doono, waxaana jiri doono isdhaafsi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa carabka ku adkeeyay in qaar ka mid ah dhulalka ay isdhaafsanayaan Ruushka iyo Ukraine ay faa'iido u yeelan doonto labada dhinac. Madaxweynaha Mareykanka ayaa muujiyay kalsoonida uu ku qabo rabitaanka labada madaxweyne ee Putin iyo Zelensky ee ah in la xalliyo colaadda muddada dheer ka jirta Ukraine. Wakaaladda wararka ee loo soo gaabiyay AP ayaa Jimcihii sheegtay in safarka madaxweynaha Ruushka Putin uu ku tagi doono magaalada Alaska Jimcaha soo socda oo noqon doono kii ugu horreeyay ee uu ku tago Mareykanka muddo 10 sano laga joogo. Booqashadii ugu dambeysay ee Putin uu ku tago Mareykanka waxa ay ahayd Sebtembar 2015 markaasi oo kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee Barack Obama oo ka qayb galay shirkii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ka dhacay New York. Booqashadiisii toddobaad ayay ahayd. Kulanka uu Trump dhowaan la qaadan doonana oo magaalada Alaska kula qaadan doono booqashadii 8aad ayay u noqon doontaa oo dalka Mareykanka oo ku tago. Sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Putin ayaa markii ugu horreysay yimid Mareykanka isagoo hogaamiyaha Ruushka ah sanadkii 2000. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in 15 Agoosto uu Alaska kula kulmi doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.